بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسر دوادة دمان بعض كحول الصومالي أكاديمي وحن نسوي دونا إن شاء الله تعالى على 10 كني بحالتشجع وحن إن شاء الله تعالى لما يستير دونا أنت نقار سنة شابتري كوبات ومركزي جبدي هدي بين ما نرجع دونا مانتا وحن إن شاء الله وحن نقول دم بيسيو نسومريني ونقاه بين شركة حيوانات كتيرة أنا قصة هذا اللي جودهان si khaas waxaan xog u saaranay unug xayawaanka khaasatan bini aadanka waxaan insha Allah taala uga gudbi doonaa heerka labaad ee markaas uu ka sameeyay jirka xayawaanadu waxaan eegi doonaa tissue organ system and organism saddexda heer ee markaas ku xiga ama afarta heer ee ku xiga waxaan eegi doonaa tissue nudaha waxaan eegi doonaa organ xubnaha organ system iyo markaas hab dhiska xubnaha ee markaas ka sameeyay yahay xayawaanku isla markaa waxaan eegi doonaa waxa la yaqaan organism amba markaas xayawaan dhameystiran oo markaas noloshiisii oo dhan qabsanaya waxaanu ka horreyn doonaa tissue nud maxay tahay nuduhu marka la eego waxa weeyaan is a group of specialized cells waa koox unugyo ah oo markaas khaas waxa looga jeedaa marka macnaheeda sababta markaas ay khaas u yihiin wax khaas ay qabtaan that work together kuwaasoo wada shaqayn leh to perform si ay u qabtaan markaas a specific function يعني شقة جونية وكوح ونجيء أو خاصة سببتنا أيتها مركزي ما دام قبل يعني شقة جونية إسلام كان قبض شقة جونية شركة وهي تصالح هذين السوق هذا وحكم من مركزي وحلا قانون مسل سلس ونجيء ده مركزي مرقها ومركز كتها نقولنا مسل تيشيو نضها مرقها شقة هذين أيتها مركزي إن الرقاچيان شركة خاصة إن الرقاچيان لفها يسكيسيدا وحد تصالح مركزي نقوله bone tissue oo nudaha ay ka sameeyeen lafuhu oo markaasi ay iyagana kuwaas ay ka sii kooban yihiin unugyo amba bone cells unugyada markaasi lafaha shaqadooduna ay tahay markaasi inay taageeraan jirka oo markaasi ay xijiyaan isla markaana ay ilaaliyaan qaab dhismeedka jirka xayawaanka uu leeyahay marka bini aadanku oo taagan xayawaanada kale afarta adduunka socda oo foorara dhamaantood qaabkooda waxa dejiya markaasi waa lafaha dhamaantoodna waxa dhaqaajiya waa murqaha saamarka waxaan ognahay markay isku tagaan unugyo gooniya oo shaqo gooniya qabtaa inay sameeyaan waxa la yaqaan tissue oo macnaheedu yahay nudahaasina markaasi ay shaqada goonida markaasi loo igmada jirka ay ka qabtaan waxaanu gudbi doonaa darajada saddexaad oo la yaqaan organ xubin maxay tahay xubin markaasi waxa weeyaan waa different tissues waa koox nudo kala duwan kuwaas markaasi isku yimid si ay u qabtaan markaasi shaqo gooniya jirka uga dhax qabtaan tusaale waxaan u soo qaadan karnaa oo kamid ah markaasi waxa la yaqaan kidney kalidu waxay qabataa shaqada qashinsaarka waxay ka kooban tahay nudo kala duwan oo fara badan waxa kamid ah waxa ku jira markaa maxay blood vessels ama markaasi weelka dhiigga qaada ayaa kamid ah waxa ku jira connective tissue nudaha jirka isku xidha waxa ku jira Allahumma salli ala waxa loo yaqaan specialized tissue nudo khaasa oo markaasi kalida un laga hadlo meel kale laga helin nudaha kala duwan markay isku yimaadaan waxay sameeyaan organ amba xubin loo yaqaan markaasi kidney oo kali loo yaqaan shaqo gooni oo la yaqaan jirka dhexdiisa ka qabato ah excretion khashin saar inay sameeyso waxa tusaalahan oo soo qaadan karnaa brain maxaa haday maskaxdu nudo fara badan bay ka koobantay markaasi waxa kamid ah markaa neurons nerve ama nerve waxa la yaqaan dareen qaadayaal waxa kamid waxa la yaqaan glial cells nudaha markaasi sameeya dib u cusboonaysiinta maskaxda markuu dhaawac soo gaadho kale waxa kamid ah blood vessels waa kuwa dhiigga qaadayay ee markaasi geenayay dhiigga kana soo celinayay waxa soo dhan markaas ku tagaan waxay sameeyaan brain ama markaasi maskax tusaale unugyo fara badan waxa jira in xubno fara badan oo jirkeen leeyahay waxa kamid ah tank carabka waa xubin kamid ah xubnaha oo markaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sameeyay marka xubintu waa unugyo fara badan oo isku tagay kuwaasoo sii sameeyay nudahaasoo kala duwan markay isku tagaana markaasi sameeyo waxa la yaqaan organ ama markaasi xubin waxaanu ka sii socon doonaa markaasi qolada saddex afraad oo la yaqaan system habdhisku muxuu yahay habdhisku waxa weeyaan group of organs waa koox xubna ah that function kuwaasoo markaasi shaqo qabta closely related isla markaana qaar markaasi isku dhadhow qaab ahaan iyo markaasi maxay ahayd halka ka soo jeedaan halka ka soo farcameen waa koox nuda ah
oo shaqo gooniya iyaguna qabta isla markaana isku dhadhow isku mid ma aha way isku dhowdhow yihiin meesha kasoo farcaman iyo meesha kasoo jeedaan ayaa markaasi isku dhadhow waayo waxaan ognahay systemiska amba habdhiska jirka ku jira bini'aadanka iyo xayawaanada kale iyo noolayaashuba inay markaasi marka uu abuurmayo ay meelo kala duwan ka yimaadaan tusaale haddaynu soo qaadana waxaa ka mid ah systemka amba habdhiska circulatory system habdhiska dhiig wareejinta ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah excretory system habdhiska qashin saarka ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah digestive system habdhiska dheefshiidka waxaanu ku socon doonaa markaa maxay darajada kusii xigta oo ugu dambayso darajada shanaada waxaa loo yaqaanaa organism waa noole weeyaan noole dhammaystiran oo markaasi nafi ku jirto oo shaqeynaya kuwaynu naqaano oo ka mid yahay bini'aadanku oo uu ka mid yahay markaasi maxaaday lo-daba dheh geela dheh waraabaha saasoo dhan waxaasoo dhan dhammaantood waa noolayaashaasina markaasi asalkooda waxay kasoo bilaabmeen unug waxaa ku xigay nod oo tushiya nodihii baa isku tegay waxay sameeyeen organ amba markaasi xubnihii baa isku sii tegay waxay sameeyeen waxa loo yaqaano system habdhisyadii baa isku tegay waxay sameeyeen waxa loo yaqaano organism noole markaa intaa markaynu kasoo baxno waxaan markaasi soo qaadan doonaa figure amba sawir inoo cadaynaya markaasi darajooyinka kala duwan ee uu soo maro jirka nooluhu kaasoo markaasi ka bilaabmaya unug amba wax ka sii yar haddaynu markaasi unug hoos sii dhaafno waxaa quran arki karnaa markaasi waa chemistryga ama markaasi moleculeska ka samaysan yahay ilaa aynu ka gaadhayna sawirkaas waxaynu hagi doonaa noolo dhammaystiran oo shaqaynaya oo sida tusaale ahaan oo kale bini'aadamkiya sawirkaasi waa kan waxa uu ka bilaabmaya xagga hore kubada yaroo buluug iyo casaan iyo waxaas ugu horeeya markaasi dhammaantood waa molecules baa isku tegay waxay sameeyeen waxa loo yaqaano organelle aynu soo aragna xubin yaroyo fara badan waxay sameeyeen cell unugyo isku tegay waxay sameeyeen tissue nudo isku tegay waxay sameeyeen organ xubno isku tegay waxay sameeyeen system habdhis isku tegayna wuxuu sameeyey markaasi waxa loo yaqaano organ system habdhisyo fara badan kuwaasoo markaa isku tegay sameeyey organism noole dhammaystiran sida tusaale ahaan oo kale ninka bartaa noogu sawiran ee ciyaaraya tenniska halkaa haddaynu kusoo dhaafno markaasi qaab dhismeedkii iyo markaasi shaqadii unuga xayawaanada waxaynu u gudbi doonaa haddii ilaahay idhaahdo unuga markaasi maxay ahayday dhirta aynu eegi doonaa structurekiisaynu ka bilaabi doonaa qaab dhismeedkiisaynu ka horreyn doonaa halkan markaasi waxaanu haynaa plant cell have a mutual similarity to that of animal cell yacni dhirta unugeeda iyo dhirta xayawaanadu way isku dhow yihiin waxbay wadaagaan fara badan laakiin se waxyaalo yaryar ay ku kala duwan yihiin marka si ay noogu fududaato waxaad maskaxda ku haynaysaa wax kasta oo laga helo animal cellka waa laga helaa plant cellka laga reebo qodobo aynu hoos ku sheegi doono oo khaas u ah markaasi plant cellska amba markaasi waxaa loo yaqaano unuga dhirta aynu ku bilowna ka koobaad waxaa loo yaqaanaa cell wall gidaarka unuga waxaa kaliya laga helaa dhirta lagama helo markaasi xayawaanada sida bini'aadamka iyo xayawaanada kale faraha badan leh lagama helo markaasi unugooda cell wall waxa loo yaqaano maxay ahayday gidaarka unuga marka gidaarka unugu muxuu shaqadiisu tahay muxuu faa'iido leeyahay number 1 shaqada koobaad uu qabta waxa weeyaan give cell is this structure unuga waxa uu siiya qaab dhismeedkeeda number 2 waxa markaasi uu markaasi waliba si khaasatan wuxuu sameeyaa shape waxa loo yaqaano qaab dhismeedka muuqaalka unuga oo unuga geedku saan arki doono waa afar gees halka unuga xayawaanku markaasi qaabkiisu u egyahay goobo laakiin aanu goobo ahayn qodobka labaad uu qabtay faa'iido leeyahay waxa weeyaan wuxuu ka hortagaa markaasi resist bursting marka uu biyo galaan unuga geedka ee biyo far badan ay soo galaan marka uu dhaafo xaddigiisii waxa u diidaa markaasi unugu inuu qarxo amba uu dilaaco dhinto qodobka kale markaasi maxay ahayday uu ka qabtaa amba uu ku taageero waxa weeyaan unugyada qaarkood gidaarada qaarkood waxay u diidaan in markaasi cudur dhaliyaasha iyo cayayaanada geedka dhaawac u geysanaya ay ka hortagaan marka shaqooyinkaas uu qabtaa okay marka waxyaalaha aad ku xasuusan karto unuga geedka waxa kamid ah geeduhu jirif ay leeyihiin bini'aadamku laakiin jirif ma laha jiriftaasi asalkeedu waxay ka soo jeedaa gidaarka unuga amba cell wallka hadduu bini'aadamku amba xayawaanada kale ay yeelan lahaayeen cell wall jirif ay yeelan lahaayeen geedka kale qodobka labaad ee ku kala duwan yihiin waxa loo yaqaanaa vacuole moqor kiish af Soomaali kiishkaasi waa laga helaa tusaale ahaan oo kale xayawaanada laakiin kiishka xayawaanka laga helaa waa mid yar waxa la waa negligible waa waxaan lagu xisaabtami karin wuuna ooli karaa mana ooli karo halka kiishka laga helo unuga geedku uu yahay mid weyn oo markaasi inta ugu badan unuga isagoo haysta isla markaana shaqo muhiim ka qabta markaasi unuga geedka waxyaalaha gudihiisa ku jira waxa loo yaqaanaa dareeraha ku jira dareeraha waxa loo yaqaanaa cell sap dareerka ama markaas muudka unuga ayaa loo yaqaanaa
muudka waxyaalaha ku jira waxaa ka mid ah sonkoro milixiyo biyo waxa kale oo ku jiri kara midabo waxyaalo fara badan oo geedku u baahan yahay ayaa markaasi gudaha ugu jira marka waa organil amba xubin yar aasaasi u ah geedka unugiisa laakiintiisa aan aasaasi u ahayn unuga xayawaanada qodobka markaasi ay ka kala duwan yihiin saddexaad waxa loo yaqaanaa chloroplast cagaariye marka dhammaan qodobadan soo sheegnay waa organelles oo xubin yarooyin ay geeduhu leeyihiin laakiintiisa ayna markaasi xayawaanadu lahayn chloroplast waxa loo yaqaanaa cagaariye waxa lagu bixiyay waxa uu siiya midabka cagaaran ee geeduhu leeyihiin waa unuga waa xubin yaraha mas'uulka ka isla markaana wuxuu qabtaa shaqo kale oo muhiim ah oo ah in uu u qabto shaqada loo yaqaan photosynthesis cunta samaysiga geedku uu sameeyo waa markaasi ka mas'uulka ah ma aanu insha Allah ta'ala in badan arki doono sharaxeeda markaas shaqada labaadna uu qabtaa waana shaqada muhiimka marka shaqada koowaad waa inuu sameeyo cunta samaysiga geedka waa inuu mas'uul ka yahay chloroplastku shaqada labaad dheeraad ku qabtaan waxa weeyaan inuu markaasi geedka midabka cagaarka uu siiyo intaas saddexda qodob ama afarta organel aynu soo sheegnay afarta xubin yaro ay ku kala duwan yihiin markaasi animal cell and plant cell inta kale inta badan waa iskaga mid halka waxaanu ku soo eegi doonaa jadwal ay noo soo koobaya farqiga u dhaxeeya animal cell unuga markaa maxay xayawaanka and plant cell iyo unuga markaasi dhirta qodobka koowaad aan soo sheegnay unuga markaasi xayawaanku cell wall malaha uu ka maqan yahay halka unuga dhirta cell wall amba markaasi gidaarka unuga uu leeyahay qodobka labaad ee ku kala duwan waxa weeyaan xayawaanka unugiisa waxa laga helaa small vacuole kiish ama moqor yar oo faa'iido badan lahayn laakiin diise shaqo qabta marka la barbar dhigo markaasi plantka oo leh large vacuole kiish weyn oo shaqo muhiim u qabto oo markaasi qayb muhiima ka qaata geedka isla markaana xubinta ugu weyn ee geedka unugiisu leeyahay qodobka saddexaad animal cellsku amba xubnaha markaasi xayawaanadu ma laha chloroplast cagaariye ma laha midab ma laha hadii kale binaadamku wada cagaar buu noqon lahaa amba akhtar buu wada noqon lahaa isla markaa qodobkan markaynu ka hadlayno eegna xagga dhirta plantsku waxay leeyihiin chloroplast cagaariye shaqadiisuna tahay inuu midabka cagaarka sameeyo isla markaana uu qabto marka waxa la yaqaan photosynthesis habka cunto samaysiga geedka isagoo ku mas'uul yahay qodobka afraad waxa weeyaan unuga markaasi xayawaanadu waxa uu ka soo leeyahay cell membrane waxa la xoob buu leeyahay isla markaana gidaarka marka maxay kan geedkuna isaguna cell membrane ama markaasi xoob uu leeyahay laakiin waxay ku kala duwan yihiin xoobka xayawaanadu wuxuu leeyahay waxa la yaqaan cholesterol ayaa ku jira xoobka xayawaanada laakiin diise xoobka uu leeyahay markaasi unuga dhirtuhu ma laha isagoo cholesterol waxa la yaqaan qodobka afraad ee ku kala duwan yihiin aba ku sii kala duwan waxa la yaqaan unuga xayawaanadu waxa uu leeyahay waxa la yaqaan centriole kuwa inaga soo sheegnay waa xarkaha yaryar ee mas'uulka ka ah marka uu qaybsamayo unugu inay kala gooyaan ee kala jiidaan animal cellku amba unuga xayawaanku uu leeyahay laakiin diise ka soo horjeedkiisa ka dhirtu ma laha qodobka ugu dambeeya ee farqiga ah ku kala duwan yihiin waxa uu noqonayaa waxa loo yaqaan habka ay u kaydsadaan markaasi tamarta labada unuga xayawaanku wuxuu u kaydsadaa tamartiisa amba sonkoraha jirka soo gala wuxuu u kaydsadaa qaab loo yaqaan glycogen oo insha Allah ta'ala aan ku baran doono sanadaha soo socda sanadka labaad oo kale ay aad loogu dhigtaa glycogen baa loo yaqaan qaab uu kaydsado markaasi tamartiisa amba sonkortiisa qaabka uu u kaydsado unuga geedaha unugoodu qaabka u kaydsadaan sonkoraha iyo tamaraha khaasatan wali waxaan ka hadlanaa waa sonkorta qaabka u kaydsadaan waxa loo yaqaan starch waxaana tusaale fiican inooga baradhadu waa markaasi waa qaab kamida qaabka u kaydsada geedku sonkortiisa dhammaanteedu inta kuusana cad baradhaduna waxa loo yaqaan starch ayaa loo yaqaan wana cunto geedku uu kaydsado waxaan insha Allah ta'ala halka markaasi ku soo gabagabaynaynaa afar sawir baa inoo yaala oo markaasi lababa dhinac isku leeyihiin mid iyadoo microscope la saaray midna iyadoo gacanta lagu sawiray waxaan inoo sheegayaa farqiga ama qaabka ay kala leeyihiin animal cell iyo plant cell inta markaynu dhameeyno insha Allah ta'ala waxaan ku soo gabagabayn doonaa chapterkii koobaad insha Allah ta'ala inta wax ka dhameeyno waxaan ka bilaabi doonaa chapterka xiga sida ay aragtay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.